walaalyaal maanta marxaladda maanta aan maraynaa waa marxalad kala guur ah waqtigii isbedeladu inay yimaadaan ay ahayd lagu ballamay hore loogu heshiiyey ayaa la joogaa waxaan filaynaa in ayaduna si nabad ah oo wanaagsan oo Ilaahay nagu gudbiyo hase yeeshee laba qodob oo kooban ayaan rabaa maanta inaan ka hadlo mid waxa waaye shalay iyo daraad waxa aad iyo aad su'aalo badan la iiga weydiinayay kulankii aan kulannay aniga iyo madaxweyne Sheekh Shariif iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa aan ku kulannay xarunta madasha xisbiyada qaran ee nagu soo booqdeen dabcan madaxda dalka ayay ka mid yihiin gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiye ku-xigeenkiisu waxay ka mid yihiin madaxda hay'adaha dastuuriga ee dalkeenu leeyahay dabcan wayna soo booqdeen markay noo yimaadeenna fariin gaara oo ay noo sideenna ma jirin mid gaar oo anagu aan u dhiibnana ma jirin laakiin dad mas'uuliyiin ah dalkan taladiisa cod ku wada lahaan ahayn waa iswarsannay waana isu warbixinay waa isdhegaysanay salaan ayayna noogu yimaadeen waxay ahayd salaan hase yeeshee dad badan ayaa siyaabo kala badbadan u rogay walaalayaal madaxda dalku waa soo booqan karaan waana is salaami karaan meel kastoo ay joogaan laakiin madaxdaasi kulankeena sidaas uu ahaa wax badan ayaa laga sheegay laakiin waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed u cadeeyo salaan iyo ismarxabeyn iyo kala warqaadasho iyo waxaan ahaynay xog isiin laakiin ajanda siyaasadeed oo ay wadeen oo ay noo keeneen ma jirin ajanda siyaasadeed oo aan anagu ayagu u dhiibnayna ma jirin marka dadka Soomaaliyeed saas ahaan madaxdaas iyo madaxda kale oo dhan dalkana waa la iswada arkayaa mar walba waa la wada fariisanayaa dabcan markay ugu yaraatana warbixinna waa la kala qaadanayaa xaaladda dalkana maanta meesha ay joogto waa maantii la isu badnaa lahaa la kulmi lahaa laga wada tasha lahaa arrimaha intaas kadib waxaan rabaa mowqifka madasha xisbiyada qaran iyo aniga ka madaxweynihii hore ahaanba annaga mowqifkeena waxba iska maana bedel meeshaan joognaa waxaan rabnaa dalku inay doorasho ka dhacdo waqtigeedii ay ku dhacdo mid laga wada tashaday oo la isla aqbalayna ay ahaato doorashadaas oo aan lagu kala qaybsamin lagu kala leexanin annaga hadafka aan leenahay waa intaas way bilaabatay maalin dhaweedna waan sheegnay kulankii dhuusamareeb ka dhacay ee 1 iyo 2 wuxuu ahaa bilow aad iyo aad u fiican ididiili iyo rajo dadka dhan geliyay caalamka geliyay Soomaaliya wanaagga la jecel waxaan leenahay wali madaxda iyo dadka Soomaaliyeedba ha sii dhiiri geliyaano madaxdana waa ku dhiiri gelinaynaa annaguna waa isu dhiiri gelinaynaa waan isku dardaarmaynaa inaan arintaasi sii xoojino kulamada dambe ee dhuusamareeb ee imaan doona ee lagu ballamay iyo kuwa ka sii dambeeyana inay guuleystaan ayaan u rajaynaynaa waxa kaliya aan ku dareena waxay tahay kulamadani meel ay ka soo bilowdeen madaxda dawlad goboleedyada is arkay markay is arkeen waxay u yeerteen muxuu ahaay madaxdii dawladda ayaa ka qayb gashay qaybo kamid ah oo hay'adaha dastuuriga hoggaankoodii madaxweynihii ra'iisul wasaarihii wixii ka qayb galeen waxaan rajaynaynaa kulamada dambe sida ay ku haboontaan horan u sheegnay haddana ku celinayno in la sii ballaariyo oo dad intaas ka badan oo Soomaaliyeed la talageliyo la iswarsado maanta waxay taagan tahay meel ay u baahan tahay dadka Soomaaliyeed in ay xalka mushkiladda maanta taagan ay dacalada ka wada qabtaan waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed ee madaxda la doortay iyo kuwa kaleba ee mas'uuliyiinta ah ee xisbiyada qaran ay ka mid yihiin maxaan ku raad bulshada rayidka ay ka mid tahay oo maxaan ku raad dhaqanka Soomaaliyeed oo cid walba waxay leedahay waxay qayb weyn ka tahay kana noqon kartaa xalka sidii lagu gaari lahaa u malayn maayo maanta cid Soomaaliya oo u taagan mushkilad inay qayb ka noqoto jecel ma jirto qof walba wuxuu jecel yahay xalka inuu qayb ka noqdo sibaanu u arkaa sidoo uu arko inuu laga dhageysto oo uu sheego oo laga qanciyo ama lagu qanciyo midda kale ayaa loo baahan yahay waxaan leenahay gobasha hala ballaariyo hala waasiciyo dadka Soomaaliyeed intooda muxuu ah cod kale oo dhan loo furo waana hubaa hadii sidaa la yeelo in wax Soomaalidu ay raali ka wada yihiin horeyna noo qaadayo ay wax badan oo dadka Soomaaliyeed waqti uga dhumaay muhiim ma ah doorashadu waqtigay lahayd waqtigeedu waa ku dhacda waa inay ku dhacda waxaan aaminsanahay sida aan sheegaynay ee taladaas hadii wadadaas la marana oo hore loo soo tijaabiyayna in waqtigeedu lagu qaban karo aaminsanahay in waqtigeedu lagu qaban karo ayaan aaminsanahay hadii
loo istaago in lagu qabto laakiin haddii rag ay rabaan in ay maxaanku yidhahdaa xoogaa ay muxuu ahaay garabka saartaan u gaar ah ma suuroobayso horeyaa loogu soo noogay xagala geel wax gunta lagu qariyo waa ka wen yihiin aad iyo aad aa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu